saacad kadib go'aankii doorashada Soomaaliya ay gaareen hogaamiyaasha Soomaaliya waxa uu madaxweyne Farmaajo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka kaas oo noqonaya kii labaad ee uu magacaabo muddada xilhayntiisa. Injineer Maxamed Roble ayaa noqonaya wasiirka koobaad kadib 60 bari oo 6 bari dhiman oo xafiiska ra'iisul wasaarenimadu banaana ku siman oo shaqada sii waday. Injineer Roble waxa uu ku dhashay magaalada Hobyo hilaadii 1963 waxa uu ku jiraa sanadka 57 ee cimrigiisa. waa xaasle aabba waa 5 caruura ku hadla 5 luuqadood haysta baasaboorka dalka Sweden 14 sano ka soo shaqeeyay hay'adda ILO oo uu mar soo noqday chief engineerka mashruuca GLBG oo mashruuca dawladaha hoose ee dalka ka taageerta. sidoo kale waxa uu soo noqday kusimaha madaxa hay'adda ILO ee Soomaaliya. saaxiibadiisa shaqada ayaa u aqoonsan nin isbedel badan cadaadis saara shaqaalaha hoosaadka isla markaana aan ku adkayna jaaniibta. xogta kooban waxaynu ku eegi doonaa fursadaha uu haysto caqabadaha hor yaalla iyo waxa laga filan karo in uu yimid xafiiska xilli xasaasi ah u baahan maareyn iyo miradhaabo gaar ah ayaa ah caqabada ugu weyn ee haysan doonta maalmaha soo socda uu xafiiska joogo. jiddeeraadi ka horeey jidkaas oo jid badan in ra'iisul wasaaraha xafiiska ugu horeeyay Xasan Cali Khayre uu ahaa aftahan golo joogsi isla markaana hadallada hela ayaa ah buundo ay adag tahay in si fudud uu ku jabiyo. waayo aragnimadaantiisa siyaasadeed iyo xiriirkiisa saamilayda siyaasadeed ee aan la ogsoonayn ayaa ah caqabad kale oo wajahaya waqti xaadirkan. caqabad kale oo weyn ayaa ah qoorqoor iyo deegaanka Dhuusamareeb oo ku suntan ka shaqayntii eriyadii Xasan Cali Khayre inay yihiin kab siyaasadeed oo xilligan ayagu ay keenadiisa ka dambeeyeen. heshiiska caawa la saxay dhaqangalkiisa ayaa ah arrin ilgooniya oo ku hayo isla markaana uusan wax doora ku lahayn. saaxiibada saameynta kule madaxweyne Farmaajo iyo isfaham waa dhexmara ayaa noqon doonta boo adag oo u bilaabma ra'iisul wasaaraha dhalinta yar ee salaanka soo fuulay. fursadaha siyaasadeed oo haysto waxaan ka xusi karnaa kaliya magaciisa inuu ka hormaray ra'iisul wasaaraha ayaa ah guul shakhsiyadeed laakiin guulihiisu waxay ku xinaan doonaan sida uu maareeyo caqabadaha kor ku xusan iyo sida uu isugu hayo siyaasadda istiidan waqtigan kala guurka. waxa ugu weyn ee laga filan karaa ayaa hirgelinta hannaan doorasho oo nabadgelyo ku dhaca. goor horeba falanqeeyaashu waxay saadaalinayaan madaxweyne Farmaajo daahinta ra'iisul wasaaruhu ay laba arrimood ahayd in heshiis doorasho oo dhammaystiran gabi ahaanba la raaco iyo waliba sidoo kale in hamaamuuskii hore ee ra'iisul wasaarenimadu uu si aad hoos ugu dhibo. isku soo wada duubo magacaabistan cusub waxay uga dhigan tahay koonfurta gaalkacyo xorriyad cusub iyo baadi ay la'aayeen tan iyo sanadkii 1960kii Cabdullaahi Ciise waana mirihii uu 60 bari hortood qoorqoor naqshadeeyay qaabeeyay ugu dambeynna caawa soo hoyatay.